waxaan u keenay waxa weeye anagu ma nihin weerar waa raggii loogu gabiyey hadday murugto cumar baa mitida maalin diriireed annagu haddaannu beesha cumar jibriil lahay waxaannu ka mid nahay oo aannu raacsannahay difaaca somalilan iyo midnimada habar jeclo habar jeclona ere baan leeyahay habar jeclooy dee habar jeclaa layna yidhaahaa habar jeclo baaq baanu dirayaa dee dalkeenna iyo nafteenna aan difaacanno waa naagaa masaylaa guryaha guba annagu guri gubimin xaasha qoladan cadowga aan iska soo hor jeedno isma aanu jeclayn dhiiggooda laakiin maanta dhiiggooda waa xalaalda mar hadday magaalooyinkayagii gubeen oo masaajidadii dubiyeen oo umulii laayeen oo carruurii laayeen dee jahaad hadhay ma jiro waa kii la fasaxay haddeerna waa soo wadnaa haddii allaba kuurooya iminkana ciidankaa safan baannu u keennay waa qaybtii u horraysay wixii ka dambeeyana waa daba joogaan oo ay sababtu tahay dee qur-aankaa banneeyey marka gurigaaga haddii lagugu yimaado inaad isdifaacdo oo laf iyo maalba difaacdo oo haddii aad ku dhimatana aad helu janno noqoto haddii kale aad bahalaha ku soo weerarayn aad iska laysana aanad dembi ku qabin annagoo ah caraale rooble iyo cabdi khayr oo ka nimi guban iyo saraar oo ka tirsan beesha cumar jibriil waxaannu halkan ciidanka arkaysaan aan ugu keennay balli cumar ayaannu keennay ciidankaa waxaannu u keennay waxa weeye annagu ma nihin weerar waxaannu difaacanaynaa dalkayaga raggina waa soo socdaa intaa aragteen in shanteed leeg baa soo socda waddaday isdaba hayaan waxa weeye waa ku dhimanaynaa ma oggolin waxa weeye meel aanu leenahay oo la qabsado raggu dee wuxuu ka yimi xeebta oo saraar buu ka yimi oo waxa weeye intaa in 10keed leeg baa la keenaya kana tegi mayno anigu ah jiif caaqlikii waxa weeye raggii halkan joogayna ismaanu haleelino waxa weeye dad guutooyinkii bal cumar joogay waxa weeye cumar oo dhamid waa jooga waa ka buuxaa inta halkaa hoganaysa waxa weeye cabdi khayr iyo caraale rooble annagu waxaannu nahay beesha caraale rooble waxaannu gurmad ugu nimi balli cumar gurmad baannu ugu nimi ciidanka halkaa jooga baannu keennay oo ay sababtu tahay dee qur-aankaa banneeyey marka gurigaaga haddii lagugu yimaado inaad isdifaacdo oo laf iyo maalba difaacdo oo haddii aad ku dhimatana aad helu janno noqoto haddii kale aad bahalaha ku soo weerarayn aad iska laysana aanad dembi ku qabin dunya wadiin allahu akbar waxaannu soo dhowaynaynaa ciidamadii hore ee balli cumar joogay dhisinka ay ku jiraan ciidamadaa naga dambeeyey ee safan iyo cuqaashaa waday oo ka mid ah caraale rooble iyo cabdi khayr oo ka mid ah beelweynta cumar jibriil ee habar jeclo waxa weeye waxay ka yimaadeen halkii ugu dambaysay xeebihii ugu dambeeyey waana intii ugu horraysay hordhac ahayd laysma gaadhin waaweynkii waxaan ku darayaa waa raggii loogu gabiyey hadday murugto cumar baa mitida maalin diriireed waxaan intaa ku darayaa annagu haddaannu beesha cumar jibriil lahay waxaannu ka mid nahay oo aannu raacsannahay difaaca somalilan iyo midnimada habar jeclo wixii habar jeclo qabtaa baannu qabnaa inta ha dhaafo cadowga la sheegaya allaha jabiyo allaahu akbar hadallo badani halkan ma yaaliin halkan anigoo ah jiif salaad yuusuf qodax beelaha cumar jibriil jiifkii ugu horreeyey ah oo ku abtirsada halkan waxaan ku soo dhowaynayaa beesha reer caraale iyo cabdi caraale ee maanta horraanteedii noo timi ee ilaa iyo isa soo daba jooga xeebta ee gurmadkii ugu horreeyey maanta noo yimi horta marka hore waa idin soo dhowaynaynaa gacmo furan baanu idinku soo dhowaynaynaa waa idiin baahnayn
taas waa eraygaas waa soo dhoweyn qoladan cadowga aan iska soo horjeedno isma aanu jeclayn dhiiggooda laakiin maanta dhiiggooda waa xalaalda mar hadday magaalooyinkayagii gubeen oo masaajidadii dubiyeen oo umulii laayeen oo carruurii laayeen dee jahaad hadhay ma jiro waa kii la fasaxay waa kii la yidhi naftiinna iyo maalkiinnaba waa xalaal marka kaasu yahay aan ninna ku duurin buqdharkayn maanta ilaa ila qabto buqdharkayn ka hadli maayo waa naagaa masaylaa guryaha guba annagu guri gubimin xaasha waana qabanaynaa haddii alla yidhi waana isdifaacaynaa sidaan ugu ogaada huwanayhallaayo walaabaha gaboobay iyo markaa lideersa laynaayo ninna uma ambaasado ninkaa dilaya maataa cidna uma ambaasado ninkaa dilaya maataa waa dirir samatar waan ku dhegaysanayey waxaatii balli cumar waxaa la dhahaa balliciye dee hadduu balliciye yahay maantu ama hadduu balliciye yahay soogal balliciye hadduu yahay dirir samatar ma halkan uga jawaabaya bulbaxasoo waxaannu idiin sheegaynaa colaadiinnu maanta ka hor nama gelin maanta se waa dhagasha si toosa waannu isaga kiixinaynaa waxaanaannu idinku imanaynaa haddaan la dayi weynaa guryihiinna sidaa odayaasha hore sheegeen beesha ballaadhan ee reer caraale ee noo timi waannu soo dhowaynaynaa iyo cabdikhayr anigu hal nin baanu jawaabaya anigu hal nin ayaanu jawaaba nin reer yeyle annagu waxaannu nahay dhallinyaradii cumar ee joogtay deegaanka balli cumar waannu soo dhowaynaynaa tolkayo inta naga maqanna waannu yeedhanaynaa waxaynu leennahay cumar meel kastoo uu joogo balli cumar baa inoo ballana balli cumar ninkii odayga ahaa ee ahaa balliciyaha waxaan leeyahay adeer iminka laga bilaabo saacaddaa laga bilaabo waxaan leeyahay yeyle waa balli cumar yeyle waa balli cumar magacaa waxaannu leennahay waannu dhilidgaraynay iminka laga bilaabo yeyle annaga noo balli cumar ah halkaas ayaannu dalkeega iyo deegaankeyga iyo dunyadeedaba ka difaacaynaa mar hadday idinku ekaan weydey deegaankiinna idinku ekaan waaye waxa weeye waannu dagaalamaynaa si qaldanna ku dagaalami mayno tii la sheegay weeye maadaama guryaha lagugu yimaado guryahaaga la soo galo waxa weeye diinta ayaa ku amraysa naftaada maalkaaga cirdigaaga intaba inaad ilaaliso oo waxa weeye ku dagaalanto cirdigu waa maxay cirdigu waa maxay nin xigaalkii ceeb laga warramay cudurti loo keenye haddii lagu dhaliilo oo hoos laguu dhigo waxa weeye cirdigaagii oo la xumeeyey iyo ceebtaadii oo aad waxa weeye doqoniina qaadato